maalin wanaagsan saaxiibayaal. Maanta video yar oo gaaban ayaa waxaan uga hadlayaa arrin maalmahan ka taagneed magaalada Muqdisho hoteeladeeda. Dadkii Soomaaliyeed markii magaalada Muqdisho ay nabad noqotay, magaalooyinkii kale ay koreen oo waxa weeye dadkii xoogaa lacag ay heleen ama dibadda iyo qurbaha iyo meelahaas ka yimaadaan ama waddanka gudihiisa ka yimaadaan, dadkii hoteelay dhisteen, hoteelo casri ah la dhistay, musqulihii iyo waxa weeye oo godka ahaa hoos u qodnaa waa laga gudbay. Hadda waxaa loo gudbay bahalkan tunjiga caadiga ama kursiga fadhiga suuliga leh sida caadiga hadda caalamka oo dhan la isticmaalo. Marka maalmahan buuqu wuxuu ka taagnaa oo ugu darneed waxay ahayd qaabka musqusha loo isticmaalay hoteeladii casriga ahaa oo 5 star ka ahaa 4 star ka ahaa Muqdisho waaweyn oo lacagta badan dhowrka milyan oo dollar ay ku baxday. dad xarfaan ah oo waxa weeye magaalada deganaa ama gobolada ka imaanay halkaas gaalkacyo iyo meelahaas ka imaanay ba waxa weeye musqushii sidii godka ay ugu fariisan jireen ay ugu fariisanayaan. Toilet paperkii ama warqadii xaashida oo la iskaga qalajin jiray ka bacdayna biyo iskaga dhaq ama haddii aad rabtid wax kale iskaga qalaji adiga un bay ku taalaaye ma isticmaalayaan. Labadooda lugood ayay waxay saarayaan meeshii loogu talagalay in barida la saaro oo lagu fariisto. Marka arrintaas aad bay hoteelada uga qayliyeen iyo dadka nadaafadda qaabilsan. War waxaa la leeyahay sawirada xataa ku dhigan akhriya, qoraalada akhriya, war musqusha waxa weeye barida ku fariista dabada dhiga, labada lugood iyo kabaha saarinine. Marka arrin aad iyo aad waxay ahayd maalmahan buuq oo uga taagneed magaalada Muqdisho oo waxa weeye hoteelada baa qaylinayaan. Qaar ba hoteelada waxay tageen xataa idaacadaha iyo ka hadlay TV-yada oo waxa la war dadku isku dayaan inay wax akhriyaan haddaysan aqoon xataa waa la tusayaa si loogu fariisto iyadoo sawirra ayaa loogu dhajiyay ilaa qofna musqusha kula gelimay adigu kuma tusaya qaabka uu isticmaalaysid musqusha. Mar arrintaas arrin la yaab leh ayay ahayd. Waxaan rajaynayaa dadka in ay markii musqusha ay galaan ay fiiriyaan haddii aysan aqoon ama dad kale ay weydiiyaan. aad iyo aad ba u mahadsantihiin saaxiibayaal.